yaa fuliyey weerarkii 19 February ee murashaxiinta ka badbaadeen ciidamada qalabka sida oo si toos ah looga amro xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya ayaa xiliyadii dambe wajahayay marxalad adag maadaama madaxweynaha sharciyadu ka dhamaatay uu u isticmaalo si sharci dara ah oo baalmarsan dastuurka qaranka. ciidamada xoogga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa galay jawi cusub wixii ka dambeeyay 8 February 2021 waxaana go'aanada lagu howlgelinayo ciidanka xoogga jamhuuriyadda Soomaaliya loo xil saaray 4 sarkaal oo kala ah taliyaha guutada Gorgor gaashaanle Dayax Cabdi taliyaha ciidanka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Tahliil Biixi iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage iyo madaxa hoggaanka sahanka iyo wardoonka ninka lagu magacaabo Saciid Kambala kaasi oo isna la hoosgeeyay qiyaastii 240 askari oo isku heebay yihiin kuna hubaysan beebayaal iyo qoryo culus si uu u difaaco maamulka madaxweynaha waqtigiisa dastuuriga uu dhamaaday. 4 sarkaal oo si qarsoodi ah ugu shiray taliska guutada Gorgor oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa isla meel dhigay qaabkii ay u fulin lahaayeen amarkii ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in la weeraro hotelkii Maa'ido oo ay ku sugnaayeen bariga madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligii iyana ay talinayeen door weyn ku lahaa dhismaha ciidanka iyo saraakiishan weerartay. 2 maalin ka hor xilli weerarka uu ku beegnaa 17 February 2021 ayaa ciidanka laga dhex dareemayay inuu jiro abaabul dagaal iyo guluf colaadeed oo saraakiishii horey u qarshan jiray howlgallada ay garan waayeen halka uu ku jahaysan yahay abaabulkaasi. waxaa jiray kulan kale oo madaxtooyada ku dhaxmaray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo 4 sarkaal ee loo xil saaray qorsheynta weeraradii murashaxiinta lagu qaaday 17 February iyo 19 February waxaana la bixiyay amarkii ugu dambeeyay ee weerarka si meesha looga saaro cabsidii ku saabsaneed qabsoomidda dibadbaxa nabadeed kaasi ujeedadiisa ahaa qabsoomidda doorashooyinka dalka. qaabka uu dhacay weerarka Maaida ururka koowaad ee guutada Gorgor oo ka soo ruqansaday dugsiga tababarada Jazeera kuwaasi oo ku hakaday xiran nacna ayaa isku qaybiyay kana soo duulaan tagay ee xirada gaadiidka booliiska waxaana ay bilaabeen weerarka lagu qaaday hotelka Maaida oo ay hogaaminayeen taliyaha Gorgor iyo taliyaha ururka koowaad ee isla ciidamada Gorgor Captain Saahid Jaamac. ciidamada wata gaadiidkan xabadda karin oo uu hogaaminayay madaxii hore ee habmaamulka xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ee loo ciidameeyay inuu ku caawiyo ku sii haynta xukunka ayaa iyana xabadda ka soo bilaabay halka loo yaqaano fagaaraha daljirka Daasoon goobtaasi oo markii hore ahayd halka uu dibadbaxa ka dhici lahaa. taliyaha nabad sugidda iyo booliiska gobolka Banaadir ayaa intii uu dagaalka socday ku sugnaa godka Jilcow oo kaabiga ku haya hotelka waqtiga weerarka lagu qaaday inkastoo aan la cadeynin wali doorka ay ku lahaayeen howlgalkaasi dhicisubay ee lagu soo afjari lahaa xubnaha murashaxiinta ee madaxdii hore ee dalka haatanna u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka. ciidamada haramcad ee Turkiga u tababaray Soomaaliya ayaa iyana waxaa la dhoobay oo lagu daadiyay aaga koonfureed ee magaalada gaar ahaan kiiloomitir 4 wadooyinka ka soo baxa aaga u xiran garoonka diyaaradaha iyo deegaanada ku xiran si looga digtoonaado gurmad ay sameyn karaan xubnaha murashaxiinta inta uu weerarka socday. doorka ay weerarka ku lahaayeen ciidamada waran iyo ilaalada madaxtooyada. qorshaha weerarka waxaa ku jiray ciidamada waran ee ilaaliya taliska Niza ee Maama Khadiijo ee loo aseeyay in xabadda ay ka soo bilaabaan dhanka wasaaradii hore ee amniga halka ilaalada madaxtooyada loo qoondeeyay in xabadda ay ka soo bilaabaan dhanka tiyaatarka qaranka. ha yeeshee kama qayb qaadan ciidankaasi waxaa shaki soo kala dhaxgalay ciidankii iyadoo taasi ay keentay in si dhaqsi ah dagaalka looga saaray ciidanka weerar ka bilaabay ee Gorgor oo dib loogu celiyay xarunta gaadiidka booliiska Soomaaliya. markii waran iyo ilaaladii madaxtooyada ka biyadiideen ka qayb qaadashada weerarka ururka koowaad ee Gorgorna ay kala shakiyeen waxaa dagaalka si dhaqsi ah ugu soo biiray taliyaha ciidamada xoogga oo watay ururka 3aad ee Gorgor
iyo sarkaal lagu magacaabo isna Iidow oo kulana si toosa ugu amar qaata ama u hoostaga kaasi oo maamula ciidan tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 100 ciidankaasi oo laga soo saaray xirada lagu dhaqan celiyo kuwa ka soo goosta shabaabka ee xirasirindi si wanaagsanna loo qalabeeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ogaaday damaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ee qarxinta dagaal sukeeye ayaa isna isoristaag ku sameeyay ciidan gurmad ahaan ugu imaan lahaa si ay weerarka ugu difaacaan amar diidada ilaalada madaxtooyada iyo waran kala shakiga soo kala dhaxgalay ciidanka gorgor iyo dadaalkii Sheekh Shariif uu ku diiday ciidamadii u soo gurman lahaa ayaa fududeeyay inuu hirgeli waayo qorshihii madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday ee ahaa in dagaal daba dheeraado oo halkaasi ka dhaco kadibna ay xaaladda isku ragto dagaal sukeeye weerarka murashaxiinta dibadbaxa hogaaminayay subaxnimadii 19 February 2021 ayaa ciidanka Haramcad ee u xil saarnaa aaga kilomitir 4 waxay isku dayeen inay qaarajiyaan musharaxiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaariyo ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo murashax Mustafa Dhuxulow waxayna si aanay kala sooc lahayn u hugiyeen rasaas kulkulul oo isugu jirtay mid culus iyo mid fududba taasi ay ugu hortageen murashaxiinta iyo dibadbaxayaashii weerarkii 19 February waxaa ku geeriyooday ugu yaraantii 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka waxaana ku dhaawacmay 10 kale sidoo kale waxaa ka dhashay khasaare hantiyadeed sida ay qabaan dadka ku xilleer arrimaha amniga iyo sharciga khasaaraha nafeed iyo tan hantiyadeed ee ka dhashay waxa mas'uuliyadeeda qaadanaya saraakiishii ku dhiiraday in ay fuliyaan weerarka sharci darrada ahaa kaasi oo ay ku raaligelinayeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday waxaana suuragal ah in maxkamad la soo taago xilliga ay dalka ka dhalato dowladda middan xigta oo sharciga ah meeshana uu ka baxo xukunka kaligii taliska ay u aaminsan yihiin siyaasiyiinta murashaxiinta su'aashu waxay tahay maadaama madaxda xilgaarsiinta dalka ay ka garaabeen wixii dhacay 19 February 2021 dhibkeeda iyo mas'uuliyadeeda oo dhanna hadda loo haysto saraakiishii ay siiyeen amarka sharci darrada ah cashir nooce ah ayay saraakiisha iyo ciidanku ku baran karaan mase laga yaabaa in ay noqoto markii ugu dambeysay oo sarkaal uu madax ka sareeyo amar qaldan ka qaato oo dastuurka uu uga xadgudbayo warbixintaasina waxa ay ku saabsaneed wixii dhacay 17 February iyo 19 February ee sanadkan 2021